beelka dhamaanu dhicin dhaqanka Soomaaliyeed dhaqanka Islaamka dhaqanka Isimada dhaqanka zada tan Soomaaliyeed Isimada Puntland Isimada beel Soomaali weyn minna ku amaan Isimada yada anaga beel weynta Ciise Maxamuud Isaam Ciise Saamuuse iyo Suldaan Siciid Maxamed Garaase aanu isugu baadhownahay كبعدين مينو وأنا ما نوعر غير الله ينفعه بالشرع الصوماليين إنهم أنفع كرو هذي أي رمضان يسوي هذا ملا أناقا يدير سوارا باكيني لما نقل من من دونه لا دورته باهي بربركينا غاصة بتشي ما أنت جوكته إيوه أنت مقام ورد أنت مقام بعضهم waxaana haatan uu isagu ku safroon yahay suldaamada iyo boqorada iyo isimada maqan basligoodii buu isagu maanta joogaa waana dooranay idinkana waa idinku soo gudbinay waxaana doonaynaa inaad nala doorataan nin annaguna waa dooranayaan anigana waxaa la yidhaahdaa muuse aadan yuusuf baa la yidhaahdaa سوينا هذا الدمنتاب يبان كم مقعدنا وهي هذا سوتيلا وسوس علينا وضيال بدن باجوجا ورئيسا ووايا أرجع ما تتجوكتنا أنت جوكتبا هجامين إيسا نبضونا ذا يصدام ماذا يسمى ماذا يكلنا وكل أما سيهين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. welcome إلى خاصهان بلش يدين سؤال
حسن يونس يا حسن لبضوا أنا وأنا سويت بني بلداجة برخد بسويت بني وأذكر أحسن هاي وأخرج كبدلان بلداجة أسماء بلداجة أنا صوت محمد حني أسلم هل بوني بانا هاي بعد قبي بلا أسلم هلوه بوني بانا هاي إنكستان كباق صدي مددن بورنا يقولوا بيجي رجع كلا هري باسي بانا هاي باور لكم هلو إيه إن أتبيعكوا كذا تاي باور لكم هلو إيه إن أتبيعكوا كذا تاي بريرة داي إني بايكو سيساي وادق إلهي بحصو روح برياي أنما هذا بقول جير إله وبندق ياي بسم الله إبو وذا ساتني برو بسم الله إبو هذا ساتني براي بالعنية بربارية وحكرت odayadii beesha isimada ka yimi baalihiyo dhaqanka oo buuxa gola baarlamaan iyo wasiir ama bergeyl dawlo baroor xamar fardo ah iyo khiyaar baacin jiray waayo mar hadday bulshadii wada dhan tahay bigilna tuurayso mar hadday bulshadii wada dhan tahay bigilna tuurayso badbaadiyo waxaan فيها بيدي يا خير بدبادي وحام فيها بيدي يا خير أفرت بيان شيء وحام بديك الرعسية بردوري مبادي يا حريد قدن كأبوها أديكو نمعذا بيغيو بلحسدونا حي hadduu gugu ku bururo mid kale eebbe kugu beego barwaaqada siyaada nafluhu badi ku taamaaye maxaa naga baasami karaa hadduu badiyo geele maxaa naga baasami karaa hadduu badiyo geeleennu laba buroo nin dhaansaday hadday laba ku soo biirto laba buroo nin dhaansaday hadduu laba ku soo biirsho marweynaha ratugu wuxuu nastaa dhowr baroo kale ee bixin dhowrto iyo taaba waa la isku biirshaaye barbarada hadday wada qabtaan hawshi naga baaday maxaa naga baasami karaa hadduu baawarku israaco maxaa naga baasami karaa haddaan badinno xoogeenna afartaa bayaanshay waxaan bidix ka raacsiiyey beeldaajahan cusubi hadduu ina ku soo biiray beeldaajahan cusubi hadduu ina ku soo biiray beeluu xuleen reeri diris waa bad oo kale eh mar haddaan bulaaniya ka jirin warar isbeeneeya inaan maanta bari taaro waanoo bannaanto inaan maanta baritaaro waa noo bannaan tahay afartaa bayaashay waxaan bidix ka raacsiiyey barkadow buruudiyo nasiib weynaha bixine bili kuula maaguu cawiyo buraba siiyaaye barbaarteenna kale iyo adigu barisma dheerayne boqolaal gargayroo tolay kaa dhex bixiyeene adigoo biyo abaal la qoray namka ku baxo adigoo biyo abaal la qoray neebka ku baxay birlabiyo inaad geesi tahay waa ku bidayaaye birlabiyo inaad geesi tahay waa ku bidayaaye baalaha kaajiyo tolkaa buuradna ha joogo baryadii ilaah fadalka iyo yaa sunnuhu baaqan bushigii dhexyaa labada dhinac baarax ugu qaybi boogaha daway jeer damay barasha keenaane xeeraan burburin iyo samee qodobo baasweerle qaynuun biroo adag shuruuc bul ku jira eedo qaynuun biroo adag shuruuc bul ku jira eedo bakhaylkiiyo mid ay ka cabsadaan baaqankiiyo tuugu marka ay bislaadaan dhammaan
اللي يسبه اليوم بديع السواد ميلك عليه باهي سقطو بديع السواد ميلك عليه باهي سقط هذا أنا كنا بغران كقول ريا بريا ياسينه أفتى بيان شيء وحن بيحكي الرأسية بربوس كني مكي غوري بربوس كني مكي غوري بربوس كني مكي غوري هاتم برموسي بلو شغو إني ما أنت تاي قلية بيركينا بلو شغو إني ما أنت تاي بيركا كوغادا باقي المدهدي وها سارتبو العروسة بيل داجة إذا كاكد يروح بنداريه بليان أريه بقول جيله إيو دار بقولتو بنا لما فريستي حد بحية أوكي بيل داجة إذا كاكد يروح بنداريه بليان أريه بقول جيله إيو دار بقولتو بنا لما فريستي حد بحية أوكينا وحرير كوبيك ما بدك سبا غيب شبقوا ليدا أفرتا بيا شيء وحن بيك الرعسي بوددا اللي باحا المها برا أبيتكية والبوددا اللي باحا المها برا أبيتكية وحكينت وقباعية يوبغ دوسن غلي معيو كل كي صوبحان بابوشي يقودكو بعيد لا يقورتو نقضو باتر تأريولو أيو بومبريرا نقضا أربان نندقو أيو بومبريرا نقضا أربان نندقو يا أذيقونا أربان نندقو يا أذيقونا إناد beegsataan kaaga baahnahay war adiguna inaad beegsato baan kaaga baahnahay buxurana waqood waa jireen loo cadburiyaayee soo booqo baridiya salaan joogso soo booqo baridiya salaan soo booqo baridiya salaan beegna ula joogso ha ka biqin باشا رجع بقول مكتسية أكبرني باشا رجوا بقول مكتسية إني ولي بمربو باهي هاي إني ولي بمربو باهي هاي بقول حواس هذا كان بوسو وذاك وين حكمة لقى بولايستاي وركان بوسو وذاك وين حكمة لقى بولايستاي يوم محمود عبد الله أحمد haddaanu nahay beesha sidaasaanu ninkaa u soo gudbinay una doorannay martiina door lama hadho dadniman aanu ku naqaan baanu ku soo doorannay salaan kadib haddaanu nahay beesha idris sugaar oo ciise maxamuud oo idris sugaar waxaanu idin keennay nin dhallinyaro ah oo beeldaajo ah oo aanu soo xullay oo diin leh oo maadi leh waxaanu rabnaa inaad nala qaadataani annagoo idris sugaara waxaan leeyahay anigu shaksi ahaan nin yoor isdrisa baana reer caynaanshaanahay maxaad caynaanshaanahay curadkii warsame maxamuud baana hambalyan leeyahay hambaliyo beeldaajaha hambaliyo yimaado qaybta idris sugaar baan ka socdaa ninkaan waan soo dhawaynaynaa waa salaamaynaa waan soo dhawaynaynaa annagoo aan islahayn cid wax ugu dhin sidaa darteed baanu ku soo dhawaynaynaa inta tan waxaan u malaynayaa inta nin haddeer iga weyn oo intaan waxaan u malaynayaa inta badan oo idris sugaara waalidkoodii baana ninkaan waan la shaqaynaynaa muddana anigu waa maqlayay intuu soo jireen ahaa oo lala
soo halgamayay ninkaasu nin jaamacad ka soo baxay weeye nin dhallinyaraha weeye haddee waana la shaqaynaynaa beeldaaja barkhad cabdulaahi maxamuud tolka annagaa u keennay annagoo beelweynta ciise maxamuuda oo ay dur sugaana annagaa keennay taas waxa weeye fardaha ay la jiray markii hore waxaan dardaaran u celinayaa waa la dardaarmayaa beeldaajaha dadweynaha haatan aan ka mid ahay oo keenana waa la dardaarmayaa beeldaajaha waxaan leeyahay haddee oge waa walaalkaayo waxaa la yidhi ninka kaa weyna waxaa lagaa rabaayo isimada laguu keenaya inaad weynaantiisa siisid ragga kulay filana oo maaragtaayey ama dhalan doona haatan la keeni doona ama hore u joogana aad maaragtaayey siisid xaqooda oo qadarintii iyo dardaarankii aanu kuu keennay meesha aad sii adkaysid diri sugaar kaliya looma keenin waxaa loo keenay intaa meesha joogta inuu beeldaajuhu u noqdo isim waxaa nala soo dardaarmay inaagoo koofiyadda ah oo hadda annaguna waxaanu leenahay barkhadow waxaanu kaa rajaynaynaa sida aanu kuu keennay inaad u noqotid ummadda reer puntland iyo ummadda soomaaliyeed markii la yidhaahdo dhulkalaa tegaysa haddii ilaahay idmo haddaad isin tahay ku ekaan maysid reer puntland ummadda soomaaliyeed meeshii aad ka tagtid waa inaad u noqotid isin inaad u noqotid beeldaaje maxamuud cabdulaahi axmed waxaa laga soo caleemasaare beesha dur sugaar ciise maxamuud ummadda soomaaliyeed buu isim u yahay isimadeeni qaaliga ahaa iyo dadkeeni iyo waxgaradkeeni dhammaantood waa fadhiyaan isimada ciise maxamuud waad la socotaanin islaan ciise islaan maxamed suldaan garaase garaad siciid faarax cabdulle inkalayahdo ugaaska afar isin baa ka horeeyey isinkii shanaad weeye ilaahay mahadi weeye labadii isin oo dhowaan la doortay waad ka warqabtaan wax badan bay ku siyaadiyeen deegaanka iyo dadka iyo dalkaba kanna sidoo kale aan rabbi uga rajaynaynaa kuwa horna waa isimadeeniyo haddee wixii ay soo wadeen iyo hawsha inoo wadeen waad la socotaanin ilaahay mahadiis weeye isna kanna isimadaasuu ku soo siyaaday annaga beel ahaan haddaan soo qabanqaabinay waxaan u soo gudbinnay eheladda meesha fadhida iyo islaamka iyo dadka deegaanka ah iyagaan rabnaa inay doortaan annagu soo qabanqaabintii baanu lahayn ummaddaan dhex keennay waxaan idinka rajaynaynaa inaad nala soo dhowaysaaniin oo nala qaadataanin dhammaantiinna waxaan idinka mahad celinaynaa kulanka aad ka soo qayb gasheen iyo gogoshayadaa soo ajiibteen salaan kadib ilaahayna abuurtay baa mahadle oo meesha isugu keenay oo nabadgelyada ina siiyey iyo sida aan shirarka u qabsanayno mahadnaqaas ilaahaan u mahadnaqay kadib waxaan u mahadnaqayaa beeshii soo qabanqaabisay xafladdan quruxda badan oo beesha ciise maxamuud idir sugaara waa u mahad celinayaa waxaan kale u mahad celinayaa in allah inta ka soo qayb gashay oo soo ajiibtay martiqaadka iyo sharafta iyo xafladda beeldaajaha iyagana waa u mahad celinayaa ilaahay baa mahadle intaa haddii aan ka gudbo beesha beeldaajuhu ka soo baxana anigu waa ka mid ahayo haddee waa ay garanaysaan ummadda loo soo bandhigay oo puntlandna waa ka mid ahay raggii shaacintiisa iyo hawshiisa ku jirana waa ka mid ahaa waana u ducaynaya waxaan leeyahay xilka loo doortay ilaahayaa ku asturo intaa haddii aan idhaahdo dad baa waxay yidhaahdaan ciise maxamuudka waabaa hal isin la lahaan jiray waabaa hal nabadoon la ahaan jiray dadka sidaas aaminsan horta waagaa ciise maxamuud intee buu ahaa maantase inteeya ilaahay baa mahaddaale maanta inuu 5 isin marayo ciise maxamuud
ilaahay baanu uga mahadnaqaynaa oo awooddaa iyo baaxaddaas siiyey iyo tiradaas marka dadka ku dheggan waabaa hal isin lalaha wardee laga teg hal isin tiraa lagaga tegey tayaa lagaga tegey aqoon baa lagaga tegey adduun casriyaa la maraya waabaa hal nabadoon lalahaa hal nabadoon baa xataa ciise maxamuud lahaan jiray mar maanta intee nabadoon buu leeyahay hal siyaasi buu lahaan jiray intee siyaasi buu leeyahay intee ganacsade leeyahay intee aqoon-yahan leeyahay intee barofesor iyo jaamacada ka soo baxday waagii meeshii la taagnaa anigu aan dhashay ma ahan in la taagnaado oo mataqaanaa maskaxdeenna ay ku jidho waabaan waxaa iiga sheekayn jiray doorashadii islaan maxamed islaan muuse waxaa iiga sheekayn jiray yuusuf aadan dibdaabiye oo joogay aabbahayna raggii joogay buu ka mid ahaa marka waxaan oran jiray allah nimankaasi nasiib badnaayeena isin bay wax ka doorteen maanta anaa waxaan maraya shanta isinoo joogtaba inaan wax ka doortay alxamdulilaahi rabbil caalamiin ma garatay shantaba anaa wax ka doortay shantuba waa isimadaydii shanta sharaf baan u hayaa iyaguna waxaan rajaynaya inay sharaf noo hayaan intaa haddii aan ka gudbo dad baa maqan dadka maqan beeldaajo u yahay inta joogtana beeldaajo u yahay ma maqnee idankaan ahaan annagaa u joogna war nala soo dhoweeye beeldaajaha annagaa idin joogne nala soo dhoweeye intiina maqan oo i maqlaysa xasha lilahi nala soo dhoweeye beeldaajaha annagaa idiin joogna annagaa idiin hadallay annagaa afkiinna ku hadlayna xaq bayna nagu tahay inaannu idiin hadallo maadaamaannu odaynahay aadna maqantiin nala soo dhoweeye beeldaajaha beeldaajahana waxaan leeyahay beeldaaje kan maqan ilaah baanu idmin kan joogana ilaah baa u idmay laakiin adigu intaba beeldaaja u tahay soo dhowow xilka lagu doortana allah kuu fududeeyo dad badan baa fadhiya si fiican baan rabay inaan uga hadlo intaasi waa in anfacdaa marka dadkaan u bannaynayaa waa mahadsantihiin dhammaantiinna waa idin salaamayaa salaamta islaamka mar labaad salaam bacdigeed raggii iga horreeyey baa sheegay arrinta hadda sida ay tahay waxa weeye anugu waxaan ku jiray shaacintiisii baan ku jiray beeldaajaha alxamdulilah haddana waxaan wakhti u helay inaan caana kushubka jooga ayaan wakhti u helay ilaahay baa mahaddaa iska leh waxaan leenahay soo dhowow beeldaaje golaha isimada soomaaliyeed oo Puntland oo ka soo baxday beesha Ciise Maxamuud haddana haddii la sii faalaynayaan uu Ciise amaba kala qaadee beesha Idris Ugaar hadda ogaada Idris kaana ka mid ahay hadda ogaada ku soo dhawow waxaan ku leenahay soo dhawow aad iyo aad gacmo furan baanu kugu soo dhawaynaynaa ilaahay baa mahadda ku gartay annaguna raalli baan ka nahay intaasaan kaga gudbaya waxaa leeyahay hadda waxaa laga hadlay isimada war isimadu dadku hadduu bato hal madaxweyneynu lahayn Soomaaliya hadda intee madaxweyne leena dadku hadduu bato wax walba oo wanaag waa badanaya Ciise Maxamuud marka hadda intaa ku joogsan mayaan waa socon doonaan haddii alla idmo waxaan leenahay marka kuwii kii guul soo dhaweeya afar baa ku hadda weeshan waxa ku fadhidaan nin saddex baa ku fadhidaan labana hadda waa ina kama maqnay waa ina la joogaan ogaada waa ina la joogaan isimada kale oo dhaqanka waa reer Puntland ama waxa weeye Soomaaliyeedna de maanta ku soo biidhay aad baan ku soo dhawaynaynaa hal kalma laba kalmadood baan anu ka hadlayaa oo dardaarna mid waxaan kula dardaarmayaa beeldaajaha waxa leeyahay beeldaaje Ciise Maxamuud kaliya isnuma ahid ummadda Soomaaliyeed baad u tahay dalka iyo dibadda meesha joogta waxaan rabnaa gacno furan iyo cod macaan iyo masaalaxa wanaagsan inaad ku dhaqdid baan rabnaa inta waxa leeyahay beeldaajaha mid waxa leeyahay beeldaajo qolada ayadan Ciise Maxamuud uu ka soo baxay in lala shaqeeyo beeldaajaha la maalgeliyo garbaha la qabto aad iyo aad waxa weeye loola shaqeeyo waariyadana intaasna fariintaas aan ku darayaa waa mahadsantihiin
aniga waxaa la yidhaha nabadoon maxamuud maxamed cawad waxaan ahay nabadoonnada uga yimi meesha la yidhaha bari boosaaso xafladdan aad baan u soo dhoweynayaa beeldaajaha waa nin dhallinyaro ah oo aqoon leh haddeerna waxay u badan yihiinba isimadii dhallinyaray u badan yihiin oo u hambalyeynaya waxa weeye xafladdu waa weyn tahay dad badanna waa joogaan hadalkana in la badiyo looma baahna marka insha Allah sidaasaan ku soo dhaweynayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan iska cod gaabnahay waana gaabinayaa bismillaahir rahmaanir rahiim hoyaalayey 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 hoyeya hoyaalayey 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 hoye hoyaalayey 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 hoye qorshe gaabay baryahan diriyo qunuma luuqayne maqaroorin maansooyinkii qiraada weynaaye qabir geliyey suugaan haddii aan qaari ku ahaaye marse haddaan u soo qumo murtida qaari baan ahaay qabyay madal ma geeyiyo midaan qaar ka soo taagaye qalloocuma iraahdiyo inaan qola ku leexshaaye gortuu qiyaas wada noqdaan qodobka sheegaaye ma qarshee dharaar qeexan baan madalka qaaday abwaankii guyaal qowla iyo waya badan qaatay amay qaar ciroobeyntimuhu qabayay taariikhe sidii shiikh khudbada diiniga aqoon u warinaya alxaaqiyo intuu hud akhriyey qaafna daba joojay oo qowl saxiix iyo xadiiskaga qisoonaya waa inuu u qeexa murtida yaan la qaadicin afardanqadiyo wawe iyo qodobadaydii dhe qadiir ceelka geeyiyo gugo qaab u soo baxay dhe qamarkiiyo shamsada soo baxdiyo waa qalaalacay dhe qalib jabintii sugaanta iyo qor hamaansaday wadada haddaanu dadego markii aan araarta qiimeeyey madashan qurxoonoo bulshadu qabu wada joogto oo qaafadii dhaqanka iyo qaranku showrayo qorshaheedu wuxuu yahay haddii aan qodobka faalleeyo beeldaaje qadan toosan baa loogu soo qumay rabbi baa u qoray madaal inuu nabadda qaataaye nimankii qalqaaliyey talaada aqoonaheed helaye lagu qanaciyey maxamuud haddaad wada qorshayseene usha dhaqanka qabo ee baahay kugu qanicee dhaqankaba farduhu waa u qurux maalin loo qumaye sanka qaarar weynliyo baruur qorta koru taagin ashkir qamara xamar qooxan iyo qalas nugaaleeda xafladada loo qabay gammaan quruxna loo yeel shanta qaaradood laga ogaa qabashadeediiye isimadu u soo qumay inay qalin saxiixane qarankeeda soomaali way wada qorsheeyeene qaranjiyo gabdhaha quruxda weyn kala qayb galaye khudbadii la mari hadalladii qaaliga ahaaye aniguno tixdan qaadi jiray waa qadimaya barkad qaabka u yahay haddaan qodobka falleeyo qulubtii wardida ee bahay qanac ku nooleeye dadku qowl ilaah yidhi yunbay ku qumanaadaane qur-aanka la baray iyo sharciga qodobadiisii qoraansi binaadan waatan iyo qaabile
qarqunbacaatay xaajadu hadday yara qararato quburiyo waxgaradiyo haddii gurti lagu qaybsho qodxa bixiye wildhaahiyiyo qaari waayahay qodxa bixiye wildhaahiyiyo qaari waayahaye qodxa bixiye wildhaariyiyo qaari waayahaye qarab iyo xigtada dallanayd kuma qatoobaane maqaraaca soryada hadduu gacanta qaadaye dhufan qalasa wow loogi jiray qoonhoyaatino geesinimadu waa qani naftiyow qaadir geliyaye ha yeeshee rag baa ka qudran oo lagu quweeyaye qoyskii dhaliyo faahiya qadan u saraaye waa niman qabweynoon aqoon qadaf walaalka nabadda waa qadariyaan haddii aan loo qaraar geline haddiise laysqabsado diriirtu waa qabrag leeyahaye qarnigiisii barra boos baa ahaa arqalaal dagaye shankar horta waa qaadan jiray maalin loo qumay labadiisa qaar gobanimay ku qotomanine sinji qadan leba hooyadiis looga qorsadaye sinji qadan leba hooyadiis looga qorsadaye waa qowl idiris yooniskii qirada weynaaye abtirsiyo qowlkoluu bixiyo qarka sararaay dadku quruxda suugaanta way qodob dhegaystaane inaan faanqarooriyey ninkii ugu qiyaasaya qodobkan ku joojiyey haddaan yaraaha ku qeexo khulaafada waxaa laga xulaa qonkii tira weyn qumanow rasuulkeenni baan kuma talqabane asagaba qureesh laga dhigiyo qonka haashimaye quruxiyo reer mudalib geesinimo horta loo geliye inuusan quursan bina'aadan baa qaabka loo yidhi mamadu waa qodob murtida lagu quweeyaye nin xilqaaday ee diina qaad ol hora yidhiye qayr male qabyaaladii waxay qalaada mooyaane midnimada qadari wada jirka lagu qaboobay waxba gabayga si qori maye waa qawimayaaye hadalkii la qaadqaadayo waa la qaybsadaye anigu qayb ammaan iyo ducan ku qasto waadaye ifka talada qaadaye ilaahay kugu qaneeceeye akhirano jannada qaymaha le qadir kugu bee ana kusubka beeldaaje maxamuud cabdullaahi axmed barkad aad iyo aad baan ugu faraxsanahay kan nabadoon ahaan una soo dhaweynaya Soomaalidu waxay ku mahmahdaa odaab ka dhow aniga shakhsiyan markaan sheekin waan rabo beeldaajaha nugaal walbadan baa leeyahay daanta uu yahay waan ka soo jeedaa aad iyo aad baan markaa ugu faraxsanahay boqolkiiba boqol waana soo dhaweynaya aad iyo aad baan ugu faraxsanahay mar labaad una soo dhaweynaya bahda dhaqanku ku soo biiray waxaan rajaynayaa wax badan inuu ku soo siyaadin doono sababtoo ah waa nin dhalinyaro ah waa nin aqoon-yahan ah waxaan ilaahay ka rajaynayaa mas-uuliyaddaas loo idmaday guud ahaan beesha ciise maxamuud iyo beesha dursugaar aniga abtayaasheeyaba in ilaahay subxaana wa tacaala u fududeeyo isma tihid beeldaaje barkad waxaad u tahay ummadda soomaaliyeed oo dhan reer puntland reer nugaaleed intaba isin baad u tahay insha allah وانا رجينا wax badan inaan ku soo kordhin doontid ilaahayna inuu kula garab galo aan ilaahay weydiisanayna subhanahu wa ta'ala annana ka beel ahaan iyo kana madoon ahaan waa la shaqeyn doonaa hadii Allah idmo beeshana waxaan ka codsanayaa guud ahaan beesha Ciise Maxamuud iyo beesha Idur Sugaarba sidii awaanintu u tiriba beeldaajaha in la isgarab istaago
af iyo adin cudud iyo meel walbaba in la isgarab taago insha Allah intaasaan ku soo koobay Soomaaliyeed barqad alxamdulillah ilaa waa mahad iska leh aan soo waafajiyay inaan ka soo wada qayb galno waxaan leenahay beeldaajiye xilka ilaahay kula qaado xil culus baa lagu dhiibay Soomaali oo dhan baa ka rabta maanta inaad hogaamiso waxa kale oo ka raba Soomaali badan baa joogta Puntland timiday oo jilicsan oo maanta aad iyo aad u jilicsan maanta rabta u baahneed maanta isimo hogaamiya isimka waxaan u rajaynaynaa in uu noqdo isimkii maanta isku wadi lahaa kuwa Puntland u dhashtay iyo kuwa yimidba anigoo ku hadlaayo magaca isimada iyo nabadoonnada beelaha jareerweyne gobolka Nugaal 18 nabadoon aan nabadoonka guud u ahay iyo isimada oo hadda ila joogo laakiin ii idmaday inaan ayaga afkooda ku hadlo inta kale intii ila joogtan way ila joogtaa intii kalena beeldaajiye waxaan kaaga wadnaa hambalyo iyo annaga matalayna insha Allah biidnillaahi kariim beeldaajiyaha insha Allah waxaan u rajaynaynaa in ilaahay isimka maanta ummadda Soomaaliyeed oo dhan isku wadi lahaa oo dadka jilicsan oo annaga ahne maanta macnaha goosha ku soo dhaweyn lahaa meel walba uu joogo haddii ilaahay yiraahdo waan rajaynaynaa waan ugu ducaynaynaa insha Allah ilaahay xilka kula qaado wassalaamu calaykum galaya caleema saarka marti sharafta cuqaasha culamaa diinka haween weynaha dhammaantiin waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بعد السلام beeldaajoha waxaa la yidhi waa beesha idiri sugaadh anugu waxaan leeyahay beeldaajahani waa beeldaajo harti waxaan ka soo jeedaa gobolka Sool Puntland baa la hadalhayaa SSCna waa lagu darayaa waxaa halkan ka hadlayay nin nabadoon oo yidhi Kismaayaan metelaa oo waxaan rabaa inuu safarka u horeysiiyo aniguna waxaan leeyahay ha noogu horeysiiyo gobolka Sool oo ha tago waxaan leeyahay hal beeldaajo aan leeyahay waxaan leeyahay beeldaajo Allah ku barakeeyo saddex iska ilaali guddoon jilicsan gar eexo iyo gacan laaban halla waxaan leeyahay beesha noo soo xushay beeldaajahan sharafta leh waxaan idin leeyahay la shaqeeyo beeldaajaha oo wixiina kula shaqeeya hantigiina kula shaqeeya maskaxdiina kula shaqeeya waxaan leeyahay beesha Ciise Maxamuud beeldaajo kulay hadda ku oranayaan tarahayagii weeyaane waxaad tidhahaa nabadda ha la ilaaliyo nabadda kula dadaal tarahayaan lagugu wareerin beeldaajo iyo samada kale fadhiya waan leenahay bilicda magaalada sharafteeda qiimaheeda harti oo dhan baa dugsanaya Soomaali oo dhan baa dugsanaysa war nabadda magaalada ha la ilaaliyo gacmaha aan isqabsano aan meel uga soo wada jeedna baan leenahay waa mabruuk sabarada laba arag intaanoo kale wax ka soo qayb kala dibad iyo gudo waa buuxaan marka waxaan leenahay beeldaajiye jira noqoto cibri dheer iyo cibaada kuu kaalmaynaynaa isimadeennii qaaliga ahaa oo badan baa maanta garbahaaga fadhiya isimadeennii qaaliga ahaa baa maanta fadhiya marka waxaan ku rajaynaynaa cibri dheer iyo cibaado waxaan leeyahay sida loo sheegay beeldaajiyaha waa nin aqoon-yahan ah waa nin dhalinyaro ah waa nin maanta dadka isku wadi kara kuwaaniyo horena nicibayna waa inoo fiican yihiin oo heerkaanay soo gaariyeen midaada kale isimada
ninba wuxuu dhalay nin qaali ah oo hadda ismadeenna maanta fadhiya garaada ha noqdaan suldaamo ha noqdaan salaadiinta kale ninba odayba wuxuu dhalay nin qaali ah waxaan rajaynaynaa ninka waa nin dhallinyaraa ha la soo dhoweeyo oo lagu caano shubo waxaan leeyahay sida uu ninka wadaadka halka uu tegey labadee nina uu kismaayo yiri nina uu yiri soolaha tagle horta labadaana waa la qabnaa anaguna waxaan leenahay ilaa xaafuur iyo ilaa halkaana hatuga iyo boosaaso waa isinkeennii la soo dhoweeyo garaadadii qaaliga ahaba inoo jooga war waxaa la yeelaya sida laleeyahay sool ha loo aado horta waa lambar wan kismaayo waa lambar tiri gobolka bari ilaa dhinacaa shisha cawluula iyo ha tago وسبب كلا كسر هرجة كوا كلا جوجا بركة والله يهاي جيرو جوج والله السماء رمضان والمضى اللي يرى سياسيين تا هواينك أنت وعمو سلام إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعد هذا المهرين وياشر رمضان هذا النمية إسكا برداجها بركة وسود ويننا وأنا نقول عن شو وأنا ضرنا سيدا ويانا روش كيان أدور ودمي وحيري بريان وارهم إلى عولة إلى كتفولان وحتى برداجة سوماليات بطل متى برداجة نغيش أو غير كلية كذا شمتين يورستيس حسب إدريس وكذا لكن اسم محمود وين هاي مرجتين باتهاي هرتي باتهاي دارود باتهاي انت ما انا امركم انت ما اسك باتهاي oo waxaan shubay inta wana madal la doonaya nabadgelyada inaad ilaalisaa la doonaya sinaanshaha kulliba inaad caadil noqoto oo inta ummadda ilaahay ku daawanaysa qaybna ku daawanaysa ka daawanayso inaad cadaalad u cadaalad samaysid baa rabaa ilaahay baa cadaalad leh in cadaalad u samaysaa wasalaam alaykum ilaahay baa mahad leho maamulkan iskale rabbigay baa mahad leho maamulkan iskale waxaana maamuus leh xafladeena magaca dheer waxaana maamuus leh xafladeena magaca dheer murwooyin iyo mudane dadka meesha soo camiray murwooyin iyo mudane dadka meesha soo camiray waxaan idin meerinahay ya salaan mugweyn buranburinaan habeeyo habsami u dhaho buranburinaan habeeyo habsami u dhaho oo aan ku hawshoodo hiyigayga waan ka jaray oo aan ku hawshoodo hiyigayga waan ka jaray barqado waxaan kaaga hari waayay waa hilbaha barqado waxaan kaaga hari waayay waa hilbaha oo walaalkal gacayl horo hooyada ka yimi walaale kalgacayl horo hooyada ka yimi oo ilbihii adan iyo ka soo jeeda meela hore ilbihii adan iyo ka soo jeeda meela hore bankugu hawlgalayo hambalyaanu ku sidnaa bankugu hawlgalayo hambalyaanu ku sidnaa sidii hogol curatay taaladaada loo hilow sidii hogol curatay taaladaada loo hilow hantida tii nebi sale baan lagu hibe oo hantida tii nebi sale baan lagu hibe oo in lagu soo haybsho maaha he habuuda noqon haddii lagu doortay oo duubka lagugu xiray war haddii lagu doortay oo duubka lagugu xiray oo deegaanada reer Puntland ku dabaaldegeen deegaanada reer Puntland ku dabaaldegeen barqadow dadnimiyo dadaal baa laga rabaa barqadow dadnimiyo dadaal baa laga rabaa dadku inuu ku sinaada la doonayaa dadku inuu ku sinaada la doonayaa oo war waduulaayo waahabayo waa duxdaa war waduulaayo waahabayo waa duxdaa eyaan dictatori iyo daalin lagugu xamaan haddii lagu doortay oo duubka lagugu xiray oo deegaanada
reer Buntland ku dabaaldegeen deegaanada reer Buntland ku dabaaldegeen barqadow dadnimiyo dulqaad baa laga rabaa dadku inuu ku sinaada la doonayaa haddii se lagu kala dulaalaad nin debicsan tahay haddii lagu kala dulaalaad nin debicsan tahay ninba wuxuu doono daanihiisa kugu fushado ninba wuxuu doono daanihiisa kugu fushado dunida iyo aakhiraba waa dunuuba culus dunida iyo aakhiraba waa dunuuba culus ee digtoonaan iyo dada halba laga rabaa barqadow beeshiinu burjibay lahaan jireen barqadow beeshiinu burjibay lahaan jireen oo bacwanada reer diris waa la beegi jiray bacwanada reer diris waa la beegi jiray isma barakaysan oo bawar lagu yaqaan isma barakaysan oo bawar lagu yaqaan bilash lama faana bitibow lahaan jireen ee barqadow beeldaaje bisinka lagu hayaa digtor baa tahay oo dadku waa ku jecel yihiin oo digtor baa tahay oo dadku waa ku jecel yihiin oo didingiyo maadigaba waa ku dacal fog tahay oo dinta iyo maadigaba waa ku dacal fog tahay halkiiyo dibindaabyo iyo dubabkiini hore halkiiyo dibindaabyo iyo dubabkiini hore xirsiyow daadihiyo maxamuud cadoo ka daran xirsiyow daadihiyo maxamuud cadoo ka daran war daacadda ilaahay dadku waa xushmayn jireen oo daacadda ilaahay dadku waa xushmayn jireen adna madaalow sidoodii lagu danee baa ku dhalay halyey baa tahay oo dad hagaagsan baa ku dhalay hoygii aad ku barbaartay baa hooda wacan lahaa hoygii aad ku barbaartay baa hooda wacan lahaa oo hufnaan iyo geesinimo aan la hiigsan karin hufnaan iyo geesinimo aan la hiigsan karin hoggaanka wanaagsan hideewow lahaan jirteen hoggaanka wanaagsan hideewow lahaan jirteen oo hoggaanka wanaagsan hideewow lahaan jirteen isinku iba weeye rabbi baana laga helaa war saldano iba weeye rabbi baana laga helaa eyay habsan noqonin hawshii lagu igmadaa barqadow isinkii baraaharo barwaaqa badan barqadow isinkii baraaharo barwaaqa badan oo bacdiisiyo reer Buntland ay badbaadiyaan bardiisiyo reer Buntland ay bogaadiyaan oo bisidiyo reer Buntland ay badbaadiyaan fidnada ka badbaada iyo baadilkiyo xumaha fidnada ka badbaada iyo baadilkiyo xumaha boqorku ka yeelay isaga wax baafiye سعيد قاعد هيسي وبيشي اسمه بدلان ودن كقيب قادتي ما شاء الله ما شاء الله وبيشي قرنكي بدلان markii la dhisayay wasiiradii lagu bilaabay ee ugu horeeyay waa beesha barqad ka soo jeedo ما شاء الله تبارك الله وبيل soo jiraan oo balaaran wasiir Axmed Saciid Nuur iyo wasiir Maxamed Xaaji Aadan ما شاء الله marka waxa weeye waa beesha asaas idin sheegaynaa anaga beeldaajaha inaad nala doorataan iyadoo aan wax imaan ku jirin oo aan wax cadifadii ku jirin ما شاء الله dayaxa loo guuray hoolkan laba nin oo walaalaha lagu caanishay ما شاء الله تبارك الله waxaanu leenahay beeldaajo khayr Allah ku siiyo soo dhawow ilaahay baa ku aqbalay maanta karaamada lagu saaray xil baa lagu saaray barqadow beeldaaje bisinka lagu hayaa oo barqadow beeldaaje bisinka lagu hayaa ee bulugno
qarankanagi maalintuu burburay buntland la asaasay oo beela beel la yidhi wasiiradii lagu bilaabay bahdaad u tahay raggii qarankii buntland soo bagaadi jiray bacadka u seexday iyo buulihii galgalaa siciid dheere maasha allah janaalkii buuraha uu gasha malaan siciid dheere markaasaa baraad u tahay maasha allah liici maayo inuu liicana laga sugi maayo oo taariikh wax ka akhriyay Soomaaliya oo aan xaaji cali ma jirteen garanayo inuusan jirin waxa la rabaa markaynu meel dhaqan joogno dhaqanka inaynu dib ugu noqono ma damcin inaan anigu gabay aan maanta halaq ugu talagalay tiriyo laakiin isla beeldaajo barxad horta waxaan leeyahay gabay haddaa rabto waa ka dhargeysaa haddii la haydmo waxaana la yidhi abwaanadii hore waxay dhaheen rag badan oo halaq ka hadlay nin wuxuu yidhi kismaayaan ku marti qaadaynaa ninna wuxuu yidhi waxaan ku marti qaadaynaa sool ha loo tartamo abwaanadu ha u tartameen sool iyo kismaayo ka soo jeedaa anuu bari baan ka soo jeedaa marka waxaan odhan doonaa goor bocor fushada noodo aan berisamaa joogno berrinada iyo dooxooyinka oo baadku ka hanaaday geelo intuu badankii dhalay booqu dararayo banaaxiga lo'dii iyo fardaha ka birinbirqaynaya adigoo ka buuxsaday indhaha lagula soo baasiya balliyadoo gambaa lagu dejay iyo beerta raaxada ee bersadii qarruu kugu cusubay boqorkii daaro marka gabay baa lagu badartami doonaa ilaahay dadkii waxba aanu sawirkayga ma rabo wuxuu yidhi xaaji cali ma jeerteen waxa la yidhi xaaji yaa tahay wuxuu yidhi ummad nebi iyo tala reer ibraahiinadaa badan aawiyo dishiishiyo ummad nebi iyo tala reer ibraahiinadaa badan nin la odaya baana horta beeldaajaa ka daaya ciise maxamuud iyo abakar ciise iyo idris ugaar beeldaajaa ka daaya beeldaajuhu waa nin daarooda daarood hadduu ka soo guurana waa nin hartiya hadduu harti ka soo guurana waa nin curadkii majeerteena curadkii majeerteen hadduu ka soo guurana waa nin curadkii aawa ah curadkii aawa hadduu ka soo guurana waa curadkii talareer hadduu ka soo guurana waa curadkii ibraahim jibraahiil markuu ka soo guurana waa curadkii salebaan maxamed markuu ka soo guurana waa curadkii maxamuud mada halkaasuu ku joogaa muusan iga qaadin ninkayga kan gaaban baa curadkii daarooda cusmaan maxamuuda intaasaan ku soo gabagabaynaya waxaan kaloo ku darayaa kelmad yaroo kaftana haddaaya waxaa la sheegay tare arbeel daajabowe ilaa beel daajaa hadalkii bari baan kugula hadlaynaayo arbeel daajabowe tan haddaa haysato taraha gelin ila ka daa daajaa waxaan leeyahay hambalyo waa kuwa hambalyaynayaa waxa weeye intaa ka badanna ma raba inaan ku sii daro waa nin saaxiibkaya aan caleemo saarnay caleemo saarkii baan ugu hadalkaygu ahaa daaje hambali baa kuu hambalyaynayaa si gaaraan kugu hambalyaynayaa waxaan kugu hambalyaynayaa xilkaan ballaaran oo aan rajaynayo ilaahayna inuu kuu fududeeyo aan rajaynayo inuu ilaahay kaa fogeeyo waxyaalo badan waxaan kugu kaa sugaynaa waa beeldaajaha beeldaajo waa nin dhallinyaraa waxaan aad iyo aad u soo dhowaynayaa xilliyadan dambe dhallinyaradeenna inay dhaqankana qayb ka noqdaan siyaasaddana iyo waxbarashada iyo aqoonta iyo horumarintana ay qayb ka noqdaan horey waxaynu u naqaanay waynoo kala socnaayeen dhaqanka waxaynu u tiri jirnay magaalooyinka kuma u badnayn odayaashaynu ka soo xuli jirnay waxaa marka hadda nasiiba ay dhaqanka inaynu sidoo kale aynu ka soo xulno dhallinyarada aqoon-yahanada dadka magaalo jooga iyo dadka horumarinta iyo deegaanka qayb qaadan kara hadalladii in badan baa la yidhi in badan baa dardaaran loogu dardaaray oo loo soo jeediyey beeldaajaha innaguna taas waa la wadaagaynaa intii hore la soo jeediyey waxa kaliya oo aan gaar u xusiya waxa weeye beeldaaje dhaqankii kaa horreeyey waxaa laga yaabaa inay waxyaalo badan oo inay ku fiicnaayeen sida dhaqanka waa ku fiicnaayeen waa u mahad celinaynaa meel fiican baynu soo gaarsiiyeen adiga waxaan kuu sii dheeraynaynaa nimanka hadda dhallinyarada weliba gaar ahaan reer nugaaleedka horumarka iyo mujtamaca horumarkiisana waxaan idinka jeednaa inaad qayb ka noqotaan inaydan ku koobnaan oo keliya dhaqanka inaynu dadka u jeedisaan wacyigelin ballaaran kala qayb qaadataan bulshada bannaan iyo gudaba qaabka ama koritaanka degaanadeenna horumarka degaanadeenna waa garan kartaa beeldaajo wuxuu ka soo jeedaa gobolka nugaal gaar ahaan wuxuu ka soo jeedaa degmada ayl
waa degmooyinkii ugu horreeyay degmooyinka Soomaaliyeed bay ka mid tahay innaga degmada inuu ku weyneed inta kale iyadaa dhashay garow iyadaa dhashay dangor iyadaa dhashay godob jiran iyadaa dhashay degmadii saas ahayd weeye waxaanu marka kaaga jeednaa adigoo la kaashanaya isimada kale adigoo la kaashanaya garadka ballaaran ee Puntland adigoo la kaashanaya Soomaaliyeedna ballaaran ee ku nool bannaan iyo gudaba in aynu u fakarno inaynu garashadeena aynu ku koobin Puntland iyo nawaaxiga la xiriira laakiin aynu ku darsanno dhaqankeenu iyadana hormuud ka noqdo horumarinta mashaariicda gaar ahaan dekada ayl oo kale iyo wixii la xiriira waliba aan ogahay haddana inay socoto jidka inuu noo socdo iyadana beeldaataha taas waxaan rabaa si gaar ah inaan gunta uga xiro haddee hadal dhammaantiis odayaashii baa yidhi dhaqan baa yidhi hadal waa dameeyaa isimadii waa naga sii dameeyaan beeldaata waa ku hambaliyeynayaa waxaan u hambaliyeynayaa innagoo dhan ba isu hambaliyeynaynaa hambaliyadu ma aha qofka kaliya oo leexil aynu dhiibno hambaliyadu waxa weeye kulligaan inay isugu hambaliyeyno inaynu maanta asiibnay inaynu soo xurannay waxaan kaloo hambaliyada la wadaajinayaa beesha walaalaheena aniga abtiyaashaya oo iyadana gartay ama ilaahay waafajiyey inay soo xulaan nin dhalinyara mutacalima ahludiina aan u hubno inuu horumarkeenna iyo dhaqankeenna inuu iyadana qayb weyn ka geli doono marnaba marka hadalka khiyaar badanna way iga sii damaysaa istimaa iga sii dameeya siyaasiyiin kale way iga dameeyaan waxyaalihii aan ka tegay dadka kale aan sii mari doono waxaan kaloo soo dhaweynayaa oo iyadana hambaliyada la wadaajinayaa walaalaheen guud ahaan Puntland oo dhan ah ma aha inaynu dhahayno beeldaaju u yahay nugaal buu u yahay reer gaar u yahay waa la qabaa intii tiri beeldaajo laga bilaabo hadda waxaa tahay beeldaajo guud waxa u tahay beeldaajo ummadda Puntland oo dhan ummadda Puntland oo dhan baa kaa fiirinaysa garsoor iyo xaq cadaalad horumar iyo wanaag bay kaa malaynayna waana ku rajaynayna waana hubnaa inaad qayb way ka geli doontid intaasaan ku soo gohooya wasalaam ajiibay ama haatan magaalada ka yimaadeen ama khaas ahaan waxaan aad ugu sii mahadcelinayaa dadka meelaha kale ka yimi oo u soo safray inay ka soo qayb galaan xafladan qiimaha badan oo taariikhiga ah oo maanta aynu u wada joogno in halkan lagu caleemo saaray beeldaajaha cusub beeldaaje maxamuud caleemo saarkiisa aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaantiin mahadcelin kadib hadda meeshaan waxa weeye kolley tan iyo saaka hadal la waday hadal badan meeshaan hadda kama furna wixii munaasabadda ku aadanaana waa la yidhi waxaan jeclahay iyadana markaas inaan soo dhoweeyo oo qodobka labaadii ah anigoo weliba u ducaynaya beeldaajaha cusub oo aynu maanta ku caana shubnay beeldaaje maxamuud waxaan leenahay beeldaaje ilaahay xilkaas iyo mas-uuliyaddaas maanta lagu gartay oo lagu maaragtay ku dhammaystirantay maanta broseskeedu dhowr sano waa soo socday maanta ku dhammaystirantay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu kuu fududeeyo oo uu maaragtay intaasoo dad Soomaaliyeed oo dad muslimiin ah oo ehela oo isu timi oo qaarkood meelo fog ka yimaadeen oo soo ajiibeen waxay ila tahay qof waliba sharaftiisa iyo karaamadiisa uu soo biiriyay wax weyn weeye marka iyadana waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkiis beeldaajihii lagu barwaaqoobo oo la mahadiyo oo haddii ilaahay waa kuu royahay taariikhda gala inaad noqotid baan adigana kuu rajaynayaa wixii dardaaran iyo wax isu sheeg iyo wax wada hadal hiwaayo dambe iska noqon doonaan masaarkaas duurkii dhacay waqtigii salaada la geliyey mid barako iyo barwaaqo iyo baraare xambaarsan allah ka yeelo isibada kaleeto oo ka soo qayb galay oo gobollada kala duwan ka yimi iyagana waxaan leeyahay iyo odayaasha kale iyo kuwa wakiilada ka ah kuwa maqan dhammaantiin maalinba waa ninkeedii
nin kastaba maalin baa lagu soo caana shubay hadda idina maalintiinnii inaad saaxiibkiina ku saartaan ayaa u timaadeen idinkana socodkiinnii iyo hawsha aad soo gasheen allah idiin barakeeyo hadalka dheerayn maayo intii soo ajiibtay wicitaankii loo yeeray iyo intii soo abaabushay labadaba ilaahay ha ka siiyo sawaab khayr iyo ku mid lagu liibaano beeldaanjahana allah ka dhigo kii jagadiisa iyo hawshiisa guud ahaan soomaali gaar ahaan puntland gaar ahaan deegaanka doortay iyo dadka ku nool gobolka anfaca allah ka yeelo dadka nin odaya baa waxaa la yidhi ducay marka wuxuu yidhi ducadaasaan ku soo boray haraggii maantoo dhan baa la fadhiyay dadkuna weli ma qadayn waqtiguna wuu dheeraaday hadda wixii ka dambeeya markii howlaha kanoo la imanayo in waqti hore la bilaabo waan ku talinaya beeldaajaha waxaan leeyahay sidii horumarka diinta horta qodobka koowaad ka dhigo labo marka labaad horumarka dhaqaalaha iyo wax kastoo khayr oo socdana doorkaaga iyo qeybtaada ka qaado meeshii aada joogtidba isimka dhaqanba soomaalidu dhaqan bay leedahay ninka isimkaa oo jooga dadkaa cid kastoo joogta isim buu u wadaya marka taasna waxa weeye ilaahay waxaan kuu rajeynaya inuu kuu fududaado xilkan aad ku soo korodhay haddii lagu yaqaanay maxaan ku raadaayey dhaliilo ay jireen dhaqamadu way badan yihiin meel kastaba ha joogeen laakiin haddaad kitaabka ilaahay qabsato iyo sunnadii rasuulka wax kaa dhumayaana ma jiraane labadaa ku mintid baan ku leeyahay dalka iyo dadka iyo diintana shaqada iyo doorka aad ka qaadan karto ugu sarreeya ka qaado haddii aad inay meel u baxda ay noqoto gobolka sool baa tegaysa gobolka sool ayaa tegaysa meel ka horeyn kartaa sool ma jirto wixii ka dambeeya meeshii kaloo aad tegaysid adaa boorigaraamkaaga degsanaya haddii alla idmo codsiyaduna waa badan yihiin nin odaya marka ayaa la yidhi ducay anigu duco badanba ma aqaan buy waayo waa ducanaya ay dhegaystabi amiirii dhahay ilaahu tale xumahana gelin buu yidhi haddaadna gelisidna odaga reerka hanaga gelin ilaa haddii odagu tala xumaado reerkii waa jabaya marka waxaan leeyahay ilaahu tale xumanahana gelin haddaadna gelisida isimadan gobolka nugaaleed bal gaar ahaan hanaga gelin wuxuu yidhi ilaahu caayibnimo hana gelin buu yidhi caayibnimo iyo caajis hana gelin hasaade haatan inaadna gelisa ay noqoto curadka reerka hanaga gelin ilaa waa ninkii dhaqdhaqaaqayo shaqadoo dhan qabanaye marka waxaan leeyahay ilaahu caayibnimo iyo dib u noqosho hana gelino haddaadna gelisidna ciidamada nugaaleed hanaga gelin gaar ahaan ilaahu wuxuu yidhi haddaad ninkii hungurixumahana gelin buu yidhi haddaadse inay geliso ay noqoto habarta reerka hanaga gelin marka waxaan leeyahay ilaahow hungurnimo hana gelin hungurixumo hana gelinayo wax quur la-aan haddayse inaadna geliso ay noqoto dadka dhaqaalaha haysta hanaga gelin ilaahu buu yidhi maxaa dhaqan xumahana gelin mana ilaahow qof fudayd hana gelin buu yidhi iyo dhaqan xun haddaadsanna geliso inanta reerka curadda hanaga gelin buu marka waxaan leeyahay ilaahow fudayd iyo dhaqan xumahana gelino
haddaad tahay inayna gelisay noqoto dumarka iyo murugooyinka khayrka iyo gabdhaha naga gelin baan leh waxaan ku soo koobaya hadalka badnaantiisa macno ma leh beeldaajaha cindallaahi bay ka timi annaga nagama imano maalintii uurka hooyadii diinta dib ugu noqda dadkii hadda waxsi ka yihiino maalintii uurka hooyadii 120 ku jiray ayaa ilaahay u qadaray saacadda tan inuu beeldaaja noqdo caana shubkiina waa dhacay marka ninkay ku jirtay xoogaa wax isku beeray qofku isaga wax isku beeree iimaanso walaalkaa la shaqay hawshana la wadaag inagoo dhanna waxaan inoo rajaynayaa reer Puntland guud ahaan midnimo iyo wadajir iyo inaan wax walba ka horumari xaaladda sool isu taagano aynaan ku wareega caddaysan wax kale oo meelay waxayna ka tarayaan aysan jirin wax kastaaba ha noqdeen taladayda weeye aniga bacda sool kadib ha noqdeen laakiin inta sool maalin walba matxu ku dhacayo oo hooyooyinka iyo carruurta iyo birimageydada iyo isbitaallada iyo masaajidada wax loo aabayeelaya aysan jirin sababaynu sheeko kale u wadnaa inama fura ooda xigta weeye maalin kale aynu iska waraysan doonaa waxa lagu jiro maalin kalena iska waraysan doonaa bal dadka xoogaa hadda wax ku jira aayadda 92 ee suuratu naxli ha fiirsadeen aayadda 92 suuratu naxli ha fiirsadeen markaas ka bacdi waxbaa u bixi doona ilaahay waxaan ka baryaynaa inaan reer Puntland midoobo Soomaaliya oo dhan ilaahay amrooda soo ururiyo madoobo waxa lagu jiro iyo butaanka laga baxo walaalnimadii Soomaaliyeed loo jeesto xariga ilaahay loo wada qabsado marka koowaadna Soomaalidu ha ogaato meel kasta ay joogto inay ka baxday oo iyagu galabsatay waxa dhacay oo carada ilaahay ku timi burburkan ilaa istighfaar iyo wadajir la yimaadana inaan laga baxayn oo ilaah lagu noqdo ilaah lagu sameyn xiro oo lagu noqdo taasna Soomaali oo dhan ayaan u rajaynayaa inay noqoto mid hawsheeda ka soo baxda beeldaaja hambaliyo ismada kaloo jooga hambaliyo inta timi hambaliyo Allah dhamaanteen haynagu anfaco asagana hawsha Allah inoo fududeeyo wadankii dhisma Puntland kii dhisanta qaadata oo wixii shalayta ku talagalku ahaa inaan Soomaali isu keenno doorkeedii ku sugnaata iyaduna liibaanta Allah ka yeelo waxaan leenahay beeldaaja soo dhawow xilligii ku habboonaa oo ama Puntland ama reer Nugaaleed ama reer Soomaaliyeed kulli wax naga khaldanayeen wax naga xumaayeen ee aan u baahnayn toosin iyo talo aqoon mid diin iyo mid maadiba labadaba aan u baahnayn ayuu beeldaajuhu ku soo aaday waxaan leeyahay beeldaaja soo dhawow talo iyo tusaale wixii aad qabto iyo aqoonba waa lagaaga fadhiyaa iyo ducaba wixii aad ku soo biirin lahayd gaar ahaan Sheekh Ciise Maxamuud anigu hadda aan halkaan magaceeda ama xafladda ama calaamasaarka ninkaan soo xushay waxaan la ka filayaa baan u malaynayaa reer Puntland oo dhammeeyay indhaha u taagayeen waayadaan wax badan baa naga xumaa khaladaad badan baa jiray calaamasaarkan baahidii ay keentay inaanu ku saxno beeldaajaha ragga kaalintiisa ka qayb qaadan doona insha Allah way noqon doonaa hadday noqoto doorkeena la ka filayay oo aanu ka gaabinay ha noqoto doorkeena la ka filayay oo aanu ka gaabinay ha noqoto xoreynta gobolka Sool iyo walaaha Hiil harti ha noqoto haddii la hayno dibadhiska iyo dimuqraadiyadda iyo dimuqraasiyada Puntland ka socda ha noqoto qalalaasaha iyo waxyaabaha yararka ah dhibaha ah dhacay iyo dhaahintooda dhib kasta oo dhacdana dhaahin bay leedahay insha Allah taala
baahidii beeldaajaha keentay ayay qayb ka tahay waxa aad naga filayseen reer Puntland oo insha Allah waad naga heli doontaa ilaahay idinkii wixii dhacayna waa idinka raali gelinaynaa inta haddii aan ka baxo beeldaajo soo dhawow ku soo dhawow bahda dhaqanka Soomaaliyeed ku soo dhawow bahda dhaqanka Puntland ku soo dhawow bahda dhaqanka beesha Ciise Maxamuud ku soo dhawow oo kaaga baahan tala iyo tusaale labadaba aad iyo aad baa u mahadsantihiin dadka ka soo qayb galay xafladda meel kastoo isaga yimaadeen intana dhegaysanaysa iyo inta muuqayga taqaanba waxaanu leenahay waqtiga yar dartiis aad iyo aad baad u mahadsantihiin barakaatu beesha Idris Sugaar Ciise Maxamuud beeldaajaha soo doorateen waa idinla qaadanay waana idinla dooranay idinkana waxaan idin leenahay ama la idinka rabaa inaad la shaqaysaan beeldaajaha oo hawsha culus oo aad u idmateen inaad gacan ku siisaan wixii uu hagaajo inaad ku taageertaan wixii uu halaabo oo khaldamana inaad toosisaan oo u naseexaysaan beeldaajahana waxaan leeyahay beeldaaje waxaa loo baahan yahay ama lagaa rabaa inaad ilaalisid oo dhowrtid beesha ku dooratay khaas ahaan midnimadeeda wadajirkeeda sinaan iyo cadaaladna aad uga adeegtid talada aad ku soo celisid maxaa yeelay alle subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay washaawirhum fi lamri fa idaa cazamta fatawakal cala allah arrinka waxaa kala tashataa dadka ehelka u ah oo aad madaxda u tahay kabacdina waxa weeye markii talada lagu siiyo oo talooyinka maaragtay aad heshid go'aan qaado markaa kadib ayaa go'aamada la qaataa beeldaaje waad soo gudubtay waad ka soo gudubtay Ciise Maxamuud iyo Idris Sugaar waxaad noqotay beeldaaje Puntland waxaad noqotay beeldaaje Soomaaliyeed ayaad u soo gudubtay arrimaha masaalixda guud iyo arrimaha caamka waxaa lagaa rabaa inaad ka qayb qaadato masaalixda caamka wixii kugu aadan inaad ka qaadatid waana kuu ducaynaynaa xilka laguu doortay allaha kuu fududeeyo beeldaaje xilka allaha kuu fududeeyo ilaahayna ha kugu asturo guud ahaan geygaynu ku noolnahay Puntland nabad ilaahay haynoo ka dhigo magaaladan Garowe ilaahay waxaanu ka barnay inuu nabad inooga dhigo colaadaha ka socda gobolka Sool iyo agaarkeeda iyadana waxaan leeyahay ilaahay hayna ka soo afjaro awalan ilaahay baa mahad iska leh wax kasta oo inoo nabadgelyo inoo ku halka inoo kulmiyay nin meel dheer ka yimi iyo meel dheer ka yimi meel ka yimiba ilaahay halka inoo kulbaa mahad iska leh waxaan kaloo mahad celinaynaa beesha soo abaabushay xafladatan iyo caleemasaarka noo keentay maantay beeldaajaha Maxamuud iyana ilaahay baa mahad baan u celinaynaa mahad bani'aadan maan u celinaynaa waxaan kaloo mahad u celinaynaa nin kasta oo ka soo qayb galay meel dheer iyo meel dhow ka yimaadee oo maanta xafladda ka soo qayb galana mahad baan u celinaynaa waa mahadsantiin aad iyo aad baan waxaan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo maanta xafladda tan lagu caleemasaarayo beeldaajaha reerkan beesha noo keentay beeldaajaha waxaan idin leeyahay waa noo keenteen waa idinka guddoonnay beeldaajaha aa noo keenteen oo tidhaahdeen beeldaaja weeye waa idinka guddoonnay waa idinla qaadannay inuu ku soo biiro golaha isimada waa idinla qaadannay beesha intaasaan leeyahay wixii kale oo hoosba hadal lahoo rag horaa ka hadlay oo laga hadli lahaad oo wixii taabadiisa ama gabe ha lagu tiriyo ama murti ha lagu tiriye rag baa ka hadlay oo haddeer hoos ugu noqon maayo waqtigoo gaaban taasna isimka beeldaajahana waxaan leeyahay beeldaaje waxaan kuu soo dhawaynaynaa golaha isimada si milge iyo mugle leh baan kuu soo dhawaynaynaa soo dhawow waanu ku hambalyaynaynaa meesha haddee xilliga maanta la joogana rag baa waxay yidhaahdeen nin hadda ka hor hadda meesha ka hadlay
waxaa laga yaabaa hadday dir sugaar baa maanta keenay dirkaas marbu nin keliya ahaa nin keliya maantana intuu baaxaduu dego iyo intuu dego anaguna waa naqaan dadkuna waa yaqaaniin soomaaliyeed doorka aad ka leedahayna inaad ka qaadayso waa qiyaasahay waxaan isleeyahay ilaahay baa doortay barkhad ama maxamuud rabbi subxaana qaadirkaa baa doortay culimmadii baa wada joogto samadaa laga soo dejiyaa xukunka ilaahay baa dadka u keena carabkiisaa la geliyaa waa lagu hadaaqaa waa la doortaa ilaahay baa doortay annaguna hadda waxaan unahay sababiyan inaan muujinno oo aan muujinno soo dhawow baanu ku leenahay waa kaala qayb qaadanaynaa wala socod barad baa tahay odayaashii hore aan nahay waa ku daadiinaynaa soo dhawow baan leenahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu hadal badan odhan maayo beeldaajaha waa soo dhowaynayaa golaha dhaqankaan ku soo dhowaynayaa beeldaaja soo dhowow waan leenahay kugu maalnay ku doorannay kugu seexannay kugu soo toosnay waan leenahay beeldaaja golaha dhaqanka diyaar baan kugu nahay waa kula shaqaynaynaa bahda idiri sugaar oo soo xushay beeldaaja maxamuud cabdulaahi waa la shaqaynaynaa anigu isimada gobolka nugaal baan ahay ninkii aanay aqoon waa isbarayaa nuur suldaan carabduur baan ahay ku soo dhowow waan leeyahay bahda dhaqanka wakhtigaa gaaban hadal badan odhan maayo beeldaajaha waa soo dhowaynayaa mar labaad iyo mar saddexaad dhammaan xafladda wixii ka soo qaybgalana waa u mahad celinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xafladadan sharafta badan isugu kaayo keenay mar labaad iyo mar saddexaad ba ilaah baan u mahadinaynaa marka labaad waxaan u mahad celinaynaa beesha soo xushay beeldaajaha aqoonta leh dhallinyarada ah aqoonta maadi iyo diiniba leh aad iyo aad baan maarta u soo dhowaynaynaa waxaana leeyahay waad asiibteen waanaad la hesheen haddaynu nahay isimada puntland ama isimada nugaaleedna waa soo dhowaynaynaa beeldaajaha waana idinka aqbalnay waxaanan ku soo dhowaynaynaa madasha isimada inuu ka mid noqdo baan rajaynaynaa insha allah waxaan kaloo rajaynaynaa inuu insha allah nin dhallinyaro aqoon la weeye inuu wax badan ina ku soo biiriyo oo uu maaragtay isimada ku soo biiriyo saasaan rajaynaynaa insha allah waqtigu waa gaaban yahay beeldaajaha waxaan leenahay socodkaaga u horeeya sidii generaalku u sheegaba waa gobolka dariskaan nahay ee walaalaheena SSC inuu booqdo ayaa laga rabaa insha allah innaguna garbaan ugu noqon doonaa haddii ilaahay idimo halkaasaan u galbinaynaa maanta meesha ugu muhiimsan oo na bugta waa halkaas ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa insha allah inuu si nabada oo maaragtay wanaag ah uu cadowga ku soo duulo ilaahay uga saaro saasaan ilaahay ka baryaynaa wixii ducaa maanta waxaa iskale beeldaajaha cusub isaga ayaa maaragtay ducada iyo karaamadu maanta ku dhan tahay isagaa laga rabaa inuu insha allah si fiican u duceeyo khayr badan baan idiin rajaynayaa mar labaad iyo mar saddexaad waa kugu hambalyaynayaa beeldaajaha dhallinyarada ay noo kanteen waa idin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan xasuustaa raalliga ahaada maalin baan aniga aabbahay oo soconnaa garowe soo aadnay muddo aan dhoweyn niman dhallinyaro ah oo barigaas magaalada joogay waxoogaa cabanayaan ugu nimid aabbahay wuxuu yidhi maxaa ka cabanaysaan waxay yidhaahdeen waxa waan noo sheegi waayeenoo dad khayilaya iyo dad iska hawlaysan bay ahaayeen lacag buu siiyey wuxuu yidhi maandhow islaan maxamed inoogey islaamkaa waxaan ugu nimid jannadii allaha geeye guri halkaasoo rays qaboobe haddaanan qaldanayn ku dheganaa wuxuu yidhi islaanow rag baan halkaa ku soo arkay raggaa wiilashaa cid u diro waxa weeye xaaladooda hoosa loo eego wuxuu ku yidhi islaamku siciidow tan jannada allaan siistay wiir jirri ka yeeli maayo ilaahay jannadii ha geeyo war weyn buu warkaasu ahaa markhaanti baan ahaa waa lay soo taagaa maanta waxaan arkaynaa rag ka mida dhallinyaradeennii saraakiisheennii halkan waxaa ka gaarsiinayaa annagu waa aynu ku faannaa laakiin haddaan naga faantaan idinka quusan mayno mana idinka yeelayno magaalada maanta raasumaal nooga hartay inaad si kale u ekaysiisaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu waxaan oran lahaa marka hore salaanka bacdi beeshii ninkan soo diyaarisay beeldaajaha soo diyaarisay noo soo xushay kelimad baan oran lahaa haddaanan kala hilmaamin waa duqoobayo marka intaan hadal leeyahaan ka kala hilmaamayaa beeldaajahana hadal baan ku dambaysiin lahaa kelmad idinkaan idin oranayaa
laba islaamood oo abgaalaa sheekaystay baa la yidhi markaasay tirna abbaaye horta nebiga yaa dhalay markaasay ti shaqfur waa yaahuu bay tiri arma nebiyaa la dhalay bay tiri horta wiilkan hadduu idinka ahaan jiray waagii hore oo wiilashiina ka mid ahaa markaad soo diyaariseen oo intaas oo qof karaamadoodii iyo ducadoodii ku dhacday buu wiilkiina ka baxay shaqfur ma nebiya shaqfur ma nebi baa la dhalay bay taagan bay joogtaayo ninkii wiilkiinni maaha ogaada sidaa ula dhaqmayseen sida loola dhaqmayaa ma aha wuxuu sidi jiray ma aha horta digtoonaada waxaan idinku waalin lahaa oday baan ahay waxaan idinku waalin lahaa horta jagadaani mansab sharci ay leedahay sharciga sal bay ku leedahay waa taqaaniin alam tara ila almala'i min bani israa'iila min bacdi muusa id qaaluu linabiyin lahum ibcad lanaa malikan fiiri nabigow ka warran baa la yidhi ma maqasho bal ka warran qolada reer bani israa'iil ee tiri nebigii inta u timid nebigow boqor noo samee hadda nebi baa joogay markaa boqor noo samee boqorka iyo suldaanka iyo beeldaajuhu waa isku mid qaala hal casaytum in kuntum nuqaatil fii sabiilillaahi bay yidhahdeen waa nala gumaystay waa nala duleeyey haddaa boqor noo samaysid waddada ilaahay baan ku dagaalamaynaa waxba dulligaanaan iska ridayna qaala hal casaytum in kutiba calaykum alqitaalu allaa tuqaatiluu ma laga yaabaa haddii laydiin soo saaro melig laydiin soo saaro inaydan dagaalamina fuliyowdaan oo baqdaan ma laga yaaba qaaluu wamaa lanaa alaa nuqaatila fii sabiilillaah halkaasuu la sii maray waqad ukhrijnaa min diyaarina wa abnaa'inaa falamaa kutiba calayhim alqitaalu markii qitaalkii lagu qoray tawallow ilaa qaliilan minhum wallaahu caliimun bidaalimiin way muxuu ahaa way fuleeyobeen oo way baqeen markii qitaalkii malagii loo soo saaray oo waa kuwa sii dacwiyayo limantaaluud annagaaba ka laandheer annagaa ka gubay waa kuwa dhahay ka bax waxaan odhan lahaa marka intaad ninkaa ku caana shubteen oo karaamo saarteen oo codkiinni oo dhan saarteen odayaashii iyo habraahiya waa ka maqli jiray iyagoo yidhaahda ninka imaamkaahi hadduu caadil yahay karaamadiisa ilaah baa yaqaan laakiin hadduusan caadil ahayn 75 qof buu la karaamaya baan odayaashii habraha ka maqli jiray ninkaas yuu idin laynin maanta marka wiilkiinna maahe waa midaasi waa mid hadda inaynu adeecnana kitaabkaa ina faray waaticu llaha waaticu rasuula wa ulil amri minkum fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila llahi warasuuli in kuntum mu'miniin saasaa leen sidaasaa la yidhi oo muxuu ahaa waxaa la yidhi muxuu ahaa adeeca rasuulka iyo ulul amrigiinna idinku aad doorateen sidaasaa khayr badan oo idiin faa'iido badan sidaasaa layna ku waaniye amar aayad ah weeye maaha waa nas aayada weeye maaha wax la iska yidhi iyo maaha intaasi waa mid beeldaajaha hal baan odhan lahaa horta anigu ayaamahan dabadaan jirayoo nin reer nugaaleeda waa ahay oo ism nugaaleed baan ahay laakiin ayaamahan dabadda jiray waa la soo shaqeeyey ismadii reer nugaaleed ee halakan joogay weliba beeshaan ilaa islaan maxamed baanu soo wada shaqayn ma garatay markii aan imid hadda oo la yidhi ciise maxamuudkii waxay marayaan 5 isim baan hoos isula hadlay markaasaan wallaahi nimankaas raganimadooda ogeyd iyo say garowga wax ugu soo dhicin jireen iyo say buntland cadkooda uga goosan jireen ciise maxamuud dhinacaas xiniya kuma dhaafine talowma waxay idiin keenayaan kuwa kale oo yidhaahda markii muxuu ahaa garaad siciid iyo ugaas cabdulaahi iyo beeldaajaha iyo aan maqlay waxay idiin keenayaan niman dhallinyaraa oo dadkii kale u dabacsan iyo dagaankii buntland u dabacsan oo yidhaahda war caasimadii baynu joognaa war dalkii baynu haysanaa garowe anugu reer garowe aan ahay yaraantaydii magaaladii aan isaga dhawaaqi jiray hameenkii markaan qof weyna war hebelow wallaahi way isu dhawaaqi jiray waana ismaqli jir garowe garowadii sidaas ahayd baa dadka qaarkii ku dulman yahay
toloma waxay idiin keenayaan qaar degan oo kuwii hore xoogaa ka dabacsan xiniya idinkagama maqnayn qayb la qaato idinkagama maqnayn markaan runta idiin sheego marka beeldaajaha waxaan leeyahay iyo garaadka cusub iyo muxuuha ugaaska iyo haddaad farsamadii raganimada badnayd xoogaa dabcisaanna waxaa laga yaabaa in wax la dareemo haddii kalena rag xiniya badani waa joogeen waddankan runtaan idiin sheegaya ma garateen suldaan beeldaajaha waxaan kaliya odhan lahaa binu aadan baynu idinka waxaan idinku sii adkaynayaa dadkiina soo doortay mawaaqif xarija baa soo maraysa mawaaqif xarija oo culus baa beeldaajaha haddeer u imaanaysa maalmo markii la joogo haddaydan mawaaqifta adag ugu samrayn haddaydan u tanaasulayn sidaan sheegayay wiilkaasina wiilkiinimaaha wuuna idinlayn doonaayo ogaada waad ku baaba'aysaan markii karaamada aad saadheen haddaad mawaaqifta xarajkaa oo culus aydan la xallin oo u tanaasulin wuu idin baabi'inayaa ogaada waxaan kaliya ku gabagabayn lahaa carabkii waa in yar hal daqiiqo weeye carabkii wuxuu yidhi waladadka ummuka yabna aadama baakiyan beeldaajow wuxuu yidhi carabkii ibnu aadanow hooyadaa waxay ku dhashay adoo ooyaya wanaasu xawlaka yadxakuuna suruuran dadka adiga kugu hareeraysna markaas hareeraysanna markaa waa qoslayeen oo wiil baa dhashay iyagu waa qoslayeen laakiin adigu waa booyaysa markaa hooyadaa ka soo baxaysa ma garatay facmal linafsika nafsadaada u shaqee an takuuna daaxikan inaad noqotid mid qoslaya idaa bakow calayka maalinta ay dushaada ka ooyi doonaan oo aad dhiman doontid mid qoslaya aad noqotide nafsadaada u shaqee weligaa haysma ogaanin yaanus idriis iyo ciise maxamuud iyo waa niman intooda ku mintaday ayay meel daran kaala dhaco waa mahadsanta maxamuud cabdulaahi baraboos waa idinla qaadanay waxaa isa moodaaba idris gaar inta dadka badankiis inuusan baaqo inta uu yahay nin baa weydiiyey waxaan intee yahay idris gaar waa xasan iyo idris xasan iyo yoris cabdalle meeluu ku ogaa lama oga cabdalle idris oo jira oo aniga koraan qaybtooda arkay beeldaajo ku darso xisaabta reerkaas oo ina ka jira waqooyiga Soomaaliya waqooyi galbeed inta madasha ka soo qayb gashay aniga hadda waxaa duco ma hadal kale ee furan garan maayo wixii la oran lahaana waa la yiri ragga hadalada taabtay hadalka xanuunka badan oo جنرال السعيد وحوجنا هالمقالات ومغلى سعيد ريالك أطرو ودفري خير هون يسكن عنده كراد محمد عمر قال محمد كان عنا هذا وايدين تقول وحيو وربرا ودانا وحكي له هدوننا أيوه يدير وايد السلام يا وانا دعينا وانا اقبل جراتك بلداجها جراتك انا من حفلتي مع الاسف واقع معي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعد السلام waxaan u malaynayaa hadal waa laga daalay waxaan leeyahay hadalku waa tix iyo tiraab marka labadiiba in lagu sheegay baan u malaynayaa oo lagula hadlay dadka beeldaajahana aad baa loola hadlay wixii waana ahaa waa la siiyey anagu insha allahu wixii anagu haddii alla idmo annaga insha allahu iska waraysan doona wixii aan siin lahaa gaar baan insha allahu isugu waraysan doonaa oo gaar baan u siin doonaa waxaa la yidhi ninbaa wuxuu yidhi la yidhi ina khaldanahay waxaan ku arkay dadkii o dhan baa runta ii jeeda nin baa laga sheegay
marka haatan waxa badaa in ummaddu noo jeedo annaga haddaan reer nugaaleed ama ciise maxamuud waxa weeye waxaan leenahay hana loo dulqaato waxa jira wax waa ka khaldami karaa qofka sina waa ismoodsiin karaa haddee casumadda horta waa wada leenahay annagu gaar uma lihin tan kalena waxbaa ku leenahay oo hadda waaba nala siin jiray haddii hadda nala siiyana hadde waa alxamdulilah oo awalba waa nala ku dari jiray marka dhib ma lahan laakiin annaguna qayb baan ka foqaynaayo waxa weeye arrinta nalagu fiirinayo waa ka foqaynaa haddii aan laydno laakiin dadkaanu la simannahay insha allahu waxay la tahay intaas haddaan idhi dadku war ma tawanaa haddeera la qadanaya xilligaas waxaan u mahad celinayaa marka dadka bulshada meesha isugu timi gaar ahaan waxaan gaar ugu mahad celinayaa isimada nagala soo qayb galay oo aanu qaybtood meelo fog ka keennay oo danahoodii iyo howlahoodii soo baajiyey waxaan kaloo u mahad celinayaa qoyskii soo duubay oo maxaan ku idhaahdaa hawshan soo qabanqaabiyey beeldaajaha noo keenay iyo dadkii qabanqaabiyey xafladan iyo intii nagala soo qayb gashay oo meel kasta ka timi dhammaan waa u mahad celinayaa waxaan leenahay aada iyo aad u mahadsantihiin beeldaajaha waxaan leenahay beeldaaji soo dhawow muddo dheer baan ku sugaynay waa kuu mahad celinaynaa in ilaahay nooga keenana aad baan ugu faraxsannahay madasha isimada ku soo dhawow anuguna wax yarbaa kaaga soo horreeyey wixii aan kaaga soo horreeyey waa kuu hayaa gacanta isqabsan doonaa haddii alla idmo howlaha yaal oo dadku hadda ka cawanayaan iyo howlaha kale oo gudoodba insha allah waa ka wada shaqayn doonaa si niyada baan u wada shaqayn doonaa haddii alla idmo ilaahay idankiis waana xallin doonaa wixii maaragtay ku adkaadana isimadeena kale iyo bahdeen baa inala jooga nin dhallinyaro ah oo aqoon-yahana baa tahay waxaa loo baahan yahay aqoontaada maragkan dadkii waxay noqdeen dad aqoon leh dad aqoon leh na waxaa maamuli karaa dad aqoon leh dad aqoon leh waxaa maamuli kara dad aqoon leh marka aada iyo aad mar labaad iyo mar saddexaadba soo dhawow insha allahu waynu tashan doonaa gaar baynu u tashan doonaa gaar ahaan nugaal ahaanna waa u tashan doonaa isma ahaanna waa u tashan doonaa wax badan oo qaldanna insha allahu innagoo ilaahay la kaashanayna waynu insha allah waynoo hagaagi doonaan howlaha laga sharqamiyey oo ay ugu horeyso dekada ayl iyo maaragtay jidka ayl wax ku tarsanaynaa hawsha laascaanood marka laga reebo qorshaha labaad bay inoo tahay haddii aan leydno cid kasta iyo ciddii ina kala shaqaynaysana baallaa ka dhigananayo garbo aada iyo aad inta joogta oo kasoo qayb gashay mar labaad iyo mar saddexaad baan u hormaryeynaya oo u ducaynayaa insha allahu waxaan leenahay beeldaajaha baan rabaa inaan kusoo dhaweeyo anigoo maxaan ku idhaahdaa jecel in maaragtay ay simada kalena ila soo dhaweeyaan waxaan rabnaa inaan kelmadiisii iyo ducadiiba isaga u dayno haddii aan leydmo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu beeldaaji soo dhawaadaysi salaamka racdi marka la xogtiisa haddee odayaashii hadlay
iyo haweenkii hadayga jeediyey wax badan raacinayo waa ku mahadsantihiin soo dhaweyntiina aad igu soo dhaweyseen kamid noqoshaha bahda dhaqanka Soomaaliyeed iyo Puntlandba mar labaad iyo mar saddexaad hadlaynta labaad waxaan u jeedinayaa dhaqanka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dhabtii waxay kaga jiraan nolosheena kaalin muhiim ah waxaan oran karaa waa la dhabarta nolosha dadka Soomaaliyeed heerka la joogo heer degmo heer gobol iyo heer dhexaba waxa weeye iyaga la ajligood marka fadliga Ilaahay laga yimaado baa lagu soo gaaray inta ka bacdi waxa weeye mahad kale aan jeedinayaa ma ka gaarto jeediyay oo ii jeediyana waa ayidii waana qaata ilaahay wuxuu ka dhigay ummad islaam ah oo kalaamka Ilaahay baa hagis iyo waano iyo wax sheeg iyo cibro qaadasho kullina ku filan taas baan ka doonaynaa insha Allah hadii rabbi idmo dardaarankiina waa qaatay ilaahay wuxuu yiri fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun dan kale wuxuu yiri wa amruhum shura baynahum inta waxa loo jeediyay hogaanka wixii min aadan baan nahay naga hoos baxa ama aan tabar weyn u lahayn dad waxa jira aan markaa dhaqanka matali karin laakiin cilmigeeda leh iyada ayaan weydiinaynaa insha Allah hadii rabbi hadii sidoo kale ay wax naga hoos baxaan waxaan galinaynaa shuuro oo waxaan galinaynaa wada tash oo waxa aan ka tashan dadka u gudoomin mayno waxa weeye waxna kaga talimayno intaas aan leeyahay